الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. waxaynu ka hadli doonaa si kooban mawduuca maskaxda qofka bini'aadmiga ah si scientific ah oo detailed ah uga hadli mayno, laakiin si kooban baan uga hadli doonaa waxa loo yaqaano brainka amba maskaxda qofka bini'aadmiga iyo dadku siday ku kala yihiin. maskaxda qofka bini'aadmiga ah waxa loo qaybiyaa saddex qaybood guud ahaan. qayb sare oo la yiraahdo koofiyad, qayb hoose oo la yiraahdo canbaruud, iyo qaybta udubka amba spinal cord la yiraahdo saad sawirka ku arki doontaan. saddexdaa qaybood baa ay maskaxdu guud ahaan ka kooban tahay. qaybta sare ee koofiyaddu oo iyaduna ka kooban 4 qabcadood oo waaweyn. qabcadda koowaad waxa la yiraahdaa waa qabcadda hore, iyo qabcadda gidaarka, iyo qabcadda qadaadka iyaduna oo xagga dambe weeyaan, iyo qabcadda dhafoorka oo iyaguna aynu sii kala qaybin doono. guud ahaan brainka ama maskaxda qofka bini'aadmiga intaas ayaa loo qaybiyaa. haddaynu galno koofiyadda, qaybtan la yiraahdo koofiyadda oo ah meesha ugu weyn maskaxda qofka bini'aadmiga ah, waana meesha maamusha jidhka qofka bini'aadmiga. qaybtaas koofiyadda ayaa maamusha. waxay u qaybsantaa iyada laftigoodu qaybtaasi koofiyadda ahi left brain and right brain, maskaxda qaybta bidixda iyo qaybta maaragtay midigta, oo qayb walba ka midaba ay leedahay shaqo gooniya. haddaba faraqa u dhexeeya waa maxay qaybta midigta iyo qaybta bidixda? aynu bal yaro eegno. maskaxda qaybta bidixda waxa ay mas-uul ka tahay, hadeeg qaybta bidixdu waxay mas-uul ka tahay, ilaahay baa subxaanahu watacaala saa ugu talagalay, oo qayba waxay maamushaa waxyaabo gooniya. ilaahay qayba waxba ugu talagalay in ay mas-uul ka noqoto. qaybta bidixda inta badan waxyaabaha xisaabaadka ah, waxyaabaha fikradaha ah, thinkinka ah, waxyaabaha afka amba luqadaha oo kaleeto, xuruufta, kelimaadka, waxa kaloo waxyaabaha garashada waqtiga, iyo wax allaale wixii maangal ah amba waxaynu idhahdo mandaqa amba rationalityga, sidaa qaybtaasa ka mas-uula. sidaa daraaddeed maskaxda qaybta bidix waxa loo yaqaanaa waxa oo lagu magacaaba the scientist, waa qaybta ka mas-uulka waxyaabaha bahdaasay soo wada galaan. waanay ka awood badan tahay qaybta midig ee maskaxda qofka bini'aadmiga. qaybtaasaa labada awood badan si ay tilmaamaan. maskaxda qaybta midig waxa ay mas-uuliyaduna ka tahay waxyaabaha maaragtay farshaxanimada ah, waxyaabaha garashada midabada, waa qaybtaasa midabada coloriska waxaan lahado, hadduu casaan yahay, hadduu caddaan yahay. qaybta mala-awaalka ka mas-uulka weeyaan, mala-awaalka ama waxyaabaha khayaaliyaadka ah ama waxyaabaha imaginationka la yidhahdo, qaybtaa midigta ayaa ka mas-uulka. cododka iyo xataa alxaanta ayadaa ka mas-uulka, waxyaabaha ibdaaca ayadaa ka mas-uula, creativeka amba hal abuurka. sidaa darteed waxaa loo yaqaanaa qaybtan the artist, oo qaybtii hor way ka duwan tahay, oo waxyaabahaas ayay iyaduna mas-uul ka tahay. maskaxda qaybta bidix iyo midig waxa ay isku xidha waxa la yihahdo brish baa isku xidha, oo loo maaragtay brish ayuu ilaahay subxaanahu watacaala oo dhex mara oo isku xidha iyaga labada qaybood ee qaybta midigta iyo qaybta bidixda. maskaxda koofiyaddu amba qaybta bidix ama midig oo hoos galaya qaybtaa weyn waxa ay ka kooban tahay 4 qaybood sidan horeba u soo tilmaamnay. qabcadda hore la yiraahdo fooda, waa intan fooda. qabcaddan fooda la yiraahdo waa meeshan waxa ay mas-uul ka tahay hab dhaqanka qofka, sida markaa fikradaha qofka, foojignaanta qofka. waa meesha runta iyo beenta qofka, oo halkaas waa qaybtaasi ku jirta. qofka marka dadkan psychologist waa ku eega qofka xagga foodiisa la eega, marka waa qaybta khiyaamada, qaybta magaranaysaay haddii beenta, qaybta runta, waxaasoo dhan halkaas ku jiraan. bini'aadmigana marka naarta lagu tuuray wata naasiyadda la qabtaa, oo waa meesha uu ka xumaado. naasiyadda ayaa marka qofka bini'aadmiga xun naarta ilaahay u gelinayo, oo runta iyo beenta iyo khiyaamada iyo waa qaybta samaysa weeyaan, waa khaladka iyo saxa iyo waa qaybta samaysa weeyaan. waxa qaybtan ku jira meesha laga hogaamiyo amba laga hago
dhammaan qofka muruqyadiisa oo dhan qaybtan bay ku jirtaa dhammaan halkan baa la maartay xataa wax la writingka writing skillka waa meeshaasay ku jirtaa qoraalka iyo wixii la hamaala waxa ku jira halka labada indhood inay dhinac isu raacaan imika qofka bini'aadmiga labadiisa dhinac halkan baa waa qaybtan bay ku jirtaa naasiyada la yiraahdo oo imika ishaada qaybna dhinaca uu leexinaysa qaybna dhinacaan bay isu wada raacaan dhinacan qaybtaasay ku jiraan inay israacaan qofka dhinac isu raacaan labadiisa indhood waxa ku jira oo kaleeto qaybtan halka laga xukumo hadalka qofka bini'aadmiga qofka halkaas qaybtan ba ku jira in qofka bini'aadmiga hadalkiisa la xukumo la controlo xataa qofka bini'aadmiga qaybtan hadday wax kaga dhacaan oo uu damage gaaro amba mushkilada ku dhacdo qofka bini'aadmiga waxa weeyaan wax u tasarruf sidii caruurnimada oo kale haddaad qof weyn oo tusaalahaan fariisa nuugaya amba shaqaya amba tasarruf ciyaalnimo ah sameeya waxa laga yaabaa damage amba mushkilada inay qaybtaa kaga dhacday waa qayb marka waa qaybta koowaad ee qabcadda hore ee la yidhaahdo fooda weeye qabcadda gidaarka amba iyada gidaar ilaahay baa subxana watacala ugu talagalay gidaarka qaybta gidaarka waxa mas-uulka ay ka tahay qaybtani ee dareemista matalan xanuunka tabashada kulaylka qabowga iyo wixii la halmaalo oo dhan waxa kaloo ku jira qaybta akhriska ayaa qaybtan ku jira gidaarka qaybta qoraalka qaybtani shaqo waa qaybta xubnaha sida ka mas-uulka waxyaabaha dhaqdhaqaaqa inaad albaad furtid amba aad xidhid qaybtan ayaa ka mas-uul ah qaybta saddexaad ee qabcadda aynu soo sheegnay waxaa la yihahdaa qabcadda dhafoorada qofka qabcadda dhafoorada weeyaan markaa qabcaddan waxa ay mas-uul ka tahay maqalka cododka iyo kala saaridda cododka hadduu qof kula hadlo isagoo kaa dambeeya marka qaybtaasaa soo gudbinaysa oo qofkaa kula hadla waa hebel marka iyada cododka iyo hadallada dadka ayay mas-uul ka tahay iyo macno u samaynta hadalkaasi inaad macno u samaysid qofkaasi waxaasuu ku yidhi macno u samaynta cododkaasi iyo weliba meesha iyo jihada waa qaybta ka mas-uulka jihada ad u socotid inaad koonfur galbeed bari qaybtan baa ka mas-uulka waxaa qaybtan ku yaala meesha lagu kaydiyo xasuusaha ayaa lagu kaydiya qaybta xasuusaha lagu kaydiyo amba xasuustu ta dhow amba ta fog amba ta dhexe qaybtaasaa kaydisa waa qayb iyaduna aada u muhiima oo dadka qofka ay ka guurtee xanuunka lahado zuhaymirka uu ku dhaco qaybtaasaa ayaa wax noqotay wax kale oo qaybtan ku jira halka wax lagu ururiyo halka matalan inay qofku cadhada iyo farxadda iyo qaybtaasay ku jiraan oo waa qaybta wax lagu ururiyo weeye qabcadda saddexaad waynu tilmaamnay haddaan qabcadda urgudubno qabcaddan afraad waxa weeyaan oo waa qadaadka sawirkaad ku arki doontaan qaybtaa dambe qadaadka sawirka markaan ayaad qaybahan aan ka sheekeynayo aad fahmi doontaan aba aad eegi doontaan waxay mas-uul ka tahay qabashada wixii sawiro ah ee ishu soo martay amba ishu soo gudbiso wixii sawiro oo dhan qaybtan ayaa ka mas-uul ah haddii dhaawac soo gaadho qaybtan waxay keeni kartaa indho la-aan qaybtan haddii dhaawac soo gaadho indho la-aan amba xanuun amba nabar ku dhaco indho la-aan bay sababtaa maskax wanaagga iyo dadka haddaba balen eegno waxaan u gudbayaa imanka dadka bani aadmiga taas waxa weeyaan xubinta maskaxdu waa qaabka loo qeybiyo weeyaan biologiga iyo cilmiga sayniska ayaa aada uga sheekeeya waxaasoo imanka ma sii dhex geli karayno laakiin waxaan usoo qaadanay habdhiska amba qaabka maskaxda bani aadmiga u dhisan tahay haddaynu eegno xagga fahamka iyo maskax wanaagga iyo qofkaasu IQ-diisu way sareysaa amba waa dhexdhexaad amba way liidataa amba way haysataa bal aynu eegno maxaa lagu qiyaasaa barometr ah qofkaas waa maskax wanaagsan yahay amba waa maskax xun yahay oo maxaa lagu qiyaasaa horta maskax wanaagga qofka tijaabooyinkii ugu horeeyey waxaa la qaaday oo la sameeyey qofkii ugu horeeyey wuxuu ahaa nin faransiisa oo Alfred Bennett la oran jiray 1904 ayaa wuxuu sameeyey waxaan lahado maaragtay IQ-da in la tijaabiyo marka caruurta caadiga maskaxdooda tahay iyo caruurta aan caadiga ahayn ayuu sameeyey tijaabo caynkaas iyo experimental ku saabsan maaragtay maskaxda qofka bani aadmiga ah si caruurta loo kala saaro
kuwa maskaxda wanaagsan iyo kuwa maskaxda xun. ninkaasaa ugu horeeyey ninka loo isno dhan Louis Fairman ayaa 1916 isaguna experimental ku saabsan waxaan la yiraahdo IQ-da iyo ablaynteedii siday tahay sameeyay. bal haddaba inuu eegno IQ-da amba maskax wanaaga saddex qaybood ayaa loo qaybiyay. qaybta bini aadmiga waxa la yiraahdo waa qayb dadka bini aadmiga ugu maskaxda wanaagsan genius-ka aynu raahno waxa lagu qiyaasa lagu cabiraa iyaga cabiray waayo bini aadmiga maskaxdiisa wax lagu cabiraa waxa la yiraahdaa waxa lagu soo saaraa formulooyin badan baa loo sameeyay laakiin waxa lagu cabiraa oo lagu qiyaasaa waxa la yiraahdo mental age-ka qofka intuu jiray iyo chronical age-ka qofka maskaxdiisu intay tahay ayaa waxa lagu dhuftaa 100 marka inta soo baxda ayaa qofka maskaxdiisu ay noqonaysaa baa la yiraahdaa qaab caynkaas loo qiyaasa qiyaasa kale oo fara badan way jiraan. waxa la qiyaasayaa qofka daada uu jiray 20 jir haduu yahay iyo waxbarashada halka uu marayo. marka hadii qofka 20 jir hadii dadka da'weyn imtixaan uu la galo imtixaanka amba dadka uu ka da'weyn uu la ka sareeyo amba uu la mid noqdo waxa la oranayaa wax IQ-diisu ama maskaxdiisu way sareysaa. hadii qof 20 jir oo qolooyin la galo isagoo mata secondary 4 maraya uu la galo qolo ayda oo amba uu la baaso la mid noqdo amba uu dhaco qofkaas waxa la leeyahay xagga mental age-kiisa ayaa hooseysa. marka chronical age-ka oo loo qeybiyo mental age-ka oo lagu dhufto 100 ayaa waxay ku soo saartaa qofka IQ-diisa. marka saddex qaybood baa dadka loo qeybiyaa dadka genius-ka ama maskaxdooda ay sareyso. qaybta koowaad 140 wixii ka sareeya waxa la waa very intelligent IQ-diisu waa sareysa waa genius dadka la yiraahdo. dad baa jira in la yiraahdo iyagoo maskaxdooda aad bay u fiican tahay waa very superior 120 ilaa 140 ay noqdaan. dad iyaguna waxa la yiraahdaa superior baa jira oo 110 ilaa 120 ah. saddexda group amba qaybood waxa la isku yiraahdaa waa qaybaha maskaxda bini aadmiga ugu sareeya way. waa dadka ay ka soo baxaan dadka philosophers-ka ahi dadka hogaamiyayaasha ahi dadka aqoonta dheeraadka leh ayaa qaybta ka soo baxaan. qayb baa jira dhexe oo la yiraahdo waa qaybtan waa qayb normal ah iyagu. qaybtan waa dadku inta u badan waa average-ka bini aadmigu intooda badani maskaxdoodu waa isku wada dhowdhowdahay oo waa intaan u badannahay. dadka genius-ka ah 100% hal baa laga helaa. dadka aadka u liitana 100% baa laga helaa laakiin majority-ga bini aadmiga waa dadka maskaxdoodu way isku dhowdhowdahay. marka ayaga dadkaasi waa dadka iskuulada galaas inta wada fadhida intooda badani way isku wada maskax dhow yihiin. waxa laga yaabaa hal arday inuu ka soo baxo oo maartay dadka maskaxdooda ay sareyso oo ka soo baxo. waxa kaloo jira oo waa dadku inta u badan yihiin. dad kale jira iyaga oo iyagu inta midna ahayn oo la yiraahdo waa qaybta labaad waa qaybta saddexaad iyagu IQ-du aad bay u liidataa. marka qaybta koowaad ee dadka maskaxdooda ay liidataa waxa la yiraahdaa waxa koow dad waa moran dadka yiraahdo moran amba dadka waa qofka yara maraanka ah. marka 70 ilaa 50 qiyaasta maskaxdiisa lagu qiyaasa. qayb kale jirta maraanka oo ka sii liidata oo la yiraahdo waa dadka la yiraahdo lagu tilmaamay inaga af Soomaali hadaynu ku sheegno dadka waa doqon baa la yiraahdaa qofkaasi. marka waxa weeyaa maskaxdiisu 30 ilaa 50 bay gaadhaa qiyaaska marka la qiyaasay IQ-da. qaybta ugu dambaysa waa qaybtan la yiraahdo sacsac ay Soomaalidu taado waa qaybtan special needs-ka iskuulada goonida ah ama gaarka loo saaro. qaybtaasi oo waxa weeyaan iskuuladan amba waxbarashadan caadiga ah lama jaan qaadaan waa qaybta ugu hooseysa. inta badan waa dadka sariiriyaalka ah ee iyagu dhammaan noloshiisa oo dhan waa maartay raashinka nadiifadiisa waxaas oo dhan waxa weeyaan gacanta lagu hayaa inta midna kuma maartay isagu ma qabsan karo. qaybta ugu sareysa saddexda waa qaybta aynu leenahay waa low IQ IQ-dooda ay aad u liidato amba aan wanaagsanayn. saddexda qaybood waxa ugu horeeya doqonka qaybta labaad nacaska iyo sacsac saddexdaas oo kala baxan. haddaba qaybta ugu sareysa ee la yiraahdo doqonku isagu wax uu iska qabsan karaa baa la yiraahdaa waa dadkan inta badan shaqooyinkan yar fudud dadka cadayga iibiye iyo baa ugu badan baa dadkan cadayada iibiye dadku yiraahdaan waa la dirdiray amba geedkan uu goynayo mushkilada waxa weeyaan waa nooca weeyaan IQ-du ahayso hooseyso. marka isagu wuxuu kari karayaa inuu cadayga iyo waxyaabaha sun maareeyo iibiyo ma challenge karayn karo noloshan caadiga ah ee maartay u baahan in raganimo badan u baahan aqoon badan u baahan. marka cadayadaas
inuu xamaasho iyo inuu kutubta galeeyo oo jildiyeeyo iyo waxyaabahaas ayuu qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalayo noloshiisa ku dabari karaya. waxa intaa in ka badan ma qaadi karayo. dadkaasi u badan yihiin inaad kaadhiyoonaha intood qaadatid aad suuqa kaga xamaalatid ood meel ku geysid 2 kilomitir weliba intaasoo gadbado intood qaadatid waad samayn kartaa waxyaabahaasi. noocaasi dadkaas u badan yihiin. haddaba waxa la yidhahdo maskaxda bani aadanka waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu geliyey madaxa. nin la odhan jiray Socrates oo ahaa philosopher Greek ah ayaa qofka bani aadmiga wuxuu ka soo qaaday inuu yahay 3 dabaqadood. dabaqada madaxa iyo dabaqadan dhexe ee caloosha iyo dabaqada lugaha. waxaanu ku baysgareeyey state amba wadan amba dal amba dowlad in caanka ay tahay. marka wuxuu qabay head of state-ka oo madaxweynaha iyo kabineetkiisa ahi waa madaxa yidhaahdaa. waa intaa madaxa ah ayuu ku maaragtay fasiriyo ku cabirayay. waxa soo raaca dadkan maaragtay philosophers-ka ah, dadkan aqoon-yahanka ah, dadkan xikmaawiyiinta iyaguna waa madaxaasuu ku cabiray. intan dhexe ee caloosha oo organis fara badan oo muhiim ah ay ku jiraan oo isna wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dadkan ganacsatada iyo dadka waxhaysta iyo dadkan adduunyada leh ayuu ku tilmaamay. inta lugaha oo lugaha qofka bani aadmiga ah labadiis lugood waxay sidaan labadan qaybood oo kale, qaybtan dhexe iyo qaybtan sare sidaan. marka waa ciidamada noocyadooda kala duwan iyo dabaqadan la yiraahdo proletariada ee iyagu maartay qaadama dharkanka ayaa ku tilmaamay. marka labadan qaybood ee lugaha iyo qaybtan dhexe ee maartay calooshu waxay u shaqeynayaan qaybta sare. qaybta sarena maskaxda bani aadmiga iyo brainka bani aadmiga waa halkii la geliyay weeyaan. dadway baa loo yiraahdaa head of state waa madaxweynaha. marka maskaxdu waa meesha maamulaysa jidhkii qofka bani aadmiga oo dhan. qaybtan dhexe marka haddii laga saaro keli amba haddii wadnaha laga bedelo amba waad noolaan kartaa. waa waxyaabo badan oo laga maarmi kara ku jira haddii loo helo wax u dhigma. qaybta lugahana qofka labadiisa san lugood oo go'an buu noolaan karaa. laakiin brainku haddii ay wax ku dhacaan amba ay dhimato qofku ma noolaan karo. marka qaybtii ugu muhiimsan oo brainka ama maskaxda ah ayaa ilaahay madaxii u geliyey. labadan qaybood kale markaas u shaqeynayaan. marka qofka maskaxda bani aadmiga ahi ilaahay waa qismatu wa nasiib. qofba in buu ka siiyey maskaxdaas aynu ka soo sheegnay inuu soo tilmaamnay waxay tahay iyo waxay ka kooban tahay iyo sida u shaqeyso iyo qayb walba waxay ka mas'uulka tahay. qof walba ilaahay in buu ka siiyey. dadku marka nolosha bani aadmigu maysan suuro gasheen amaba may socoteen nolosha bani aadmigu dadku hadday dhammaantood ay noqdaan dad wada genius ah oo maskaxdoodu high IQ ay wada yihiin, maskax wada sarreysa hadday ahaan lahaayeen nolosha bani aadmiga wax isu shaqeeya iyo wax magaranaysa kala dambeeya iyo wax is hogaamiya wax ismaamula maysan lahaateen. markaasaa awgeed ayaa qof maskax weyn iyo qof maskax dhexdhexaada leh iyo qof maskax liita looga dhigay. oo sida qofka bani aadmiga boroygiisu iyo systemka jidhkiisu u samaysan yahay ayuu ku baysgaray ninka la yiraahdo Socrates oo bani aadmigu yahay. maskaxduna waa meesha ugu muhiimsan. sida waxa la tilmaamo maskaxda waa la kubcin karaa oo qofka bani aadmiga maskaxdiisa uu kubcin karaa oo wuxuu ku kubcin karaa qofka bani aadmiga maskaxdiisa oo ka shaqaysiiyo. laakiin maskaxda haddaad idle ka digtid oo aad waxba maartay ku qaban weydid idle bay noqonaysaa way dhimanaysaa. inta aynu ka isticmaalna maskaxda qofka bani aadmiga marka dadka scientists ka sheekeynayaan waad la yaabaysaa. marka maskaxdan markastoo aad adeegsatid brainkaaga aad ku adeegsatid akhris iyo fakir iyo wax la halmaalo waa markastoo ay shaqadii ilaahay ugu talagalay ay qabanayso. markaste oo maskaxda aad adeegsan weydna way sii dhimanaysaa. inta bani aadmigu ka isticmaalo maskaxda uu ka shaqaysiino waa in aad u kooban. marka maskaxda bani aadmiga xikmad fara badan ayaa ku jirta oo aan halkan kusoo koobi karahayn. xataa waxa weeyaan qofka bani aadmiga waxa la yiraahdaa oxygen-ta uu qaadanaya 25% wax ka badan maskaxda qaadata. marka qofku haddii meel hawadu ay ku yar tahay uu galo waatan qofku uu sida noqonayo kumana sii jiro inuu maartay noloshaba uu ka tagaa suuragala. sidoo kale maskaxdu jidhka bani aadmiga waa meesha ugu sonkor qaadashada badan sukarka waxna shukarka iyada ugu faraha badan inta ugu badan ayaa qaata 35 above wax ahbay qaata jidhka inta kale marka la isku daro. marka maskaxda bani aadmigu muhiimadda iyo qaayahaas iyada waana halka qofka bani aadmiga uu ka hago noloshiisa iyo inta kale jidhkiisa. marka intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkan kooban ee aan kaga hadlayo maskaxda. inta badan waxaan ugu talagalnay in ay dadku wixii barnaamijyo ay halkan aan ka sii daayo iyaga laftigooda ay baarid ku sameeyaan
oo uu noqdo programkani mid aqoon gudbinaya sida magaca barnaamijku uu yahay magac uu ka tarjumo uu yahay barnaamij aqoon gudbinaya oo dadkuna ay ka faa'iidaystaan wax la baaro cilmi baadho aynu samayno research la sameeyo qofku wax raadiyo library-yada aad tagtid waxaan lagu soo bandhigay amba lagu sharxayo amba laga hadlayo adiga laftigaagu aad baadhid oo aad sii siyaasatid intaa ayaan kusoo gabagabanayaa wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.